بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV qodobada wararka aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya maxaad ka ogtahay fanaankiinista soo bandhigtay ee qirtay inuu yahay shabaab duqeymo culus oo xalay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe xukuumadda cusub oo looga dhawaaqay dalka Lubnaan General Indha Cadde oo sheegay in hay'adda dowladda ay ku milmeen ururka Al-Shabaab iyo dad lagu qabqabtay howlgallo laga sameeyay Gaalkacyo qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka inta uu socdo intaasina waxay ahaayeen qodobadii warka ugu dur corona iminkana kusoo dhawaada isagii oo fidsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa xalay barteeda Twitter-ka ku baahisay muuqaalo kooban oo muujinaya fanaanka Abshir Gaarane Axmed oo qiranaya inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. NISA ayaa qoraal kooban oo ay soo raacisay muuqaalka fanaanka waxa ay ku tiri Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka gobolka Banaadir una qaabilsan Al-Shabaab xuraanka iyo maaliyadda ayaa dabagal dheer kadib NISA gacanta ku soo dhigtay iyadoo loo gudbinayo hay-adda garsoorka. Abshir Gaarane ayaa isagoo yiirana ka mid ahaa ururka Al-Shabaab waxa uu yiri Al-Shabaab waxa aan u shaqo bilaabay sanadkii 2013 shaqadaydu waa fanaan waxaan ka shaqeynayay gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta Al-Shabaab waxaan u qaabilsanaa macluumaadka iyo dhanka maaliyadda ayuu yiri. dhanka kale haddii aan eegno duqeymo culus oo xalay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe waxaa faahfaahino laga helayaa duqeymo xoog leh oo xalay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe kuwaas oo lala beegsaday dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. deegaanada duqeynta ka dhacday ayaa kala ah Hargeysa, Saako iyo deegaano u dhexeysa Jilib iyo Bu'aale oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe. duqeynta koowaad ayaa ka dhacday Hargeysa waxaana la sheegay in halkaasi lagu burburiyay xarun ciidan oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen duleedka deegaankaasi waxaana la sheegay in ay duqeyntaasi ku dhinteen dagaalamayaal ku sugnaa xeradaasi. dhanka kale degmada Saako waxaa lagu duqeeyay xarun kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen waxaana la sheegay in xeradaasi ay ku keedsanaayeen hub badan isla markaasna duqeynta lagu burburiyay. sidoo kale inta u dhexeysa degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ayaa waxaa la sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday lagu dilay xubno sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kaas oo lagu magacaabi jiray Abu Cabdallah sida ay warbaahintu u sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka qaranka Soomaaliya. dhinaca kale deegaanka Sablaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo waramayaa in duqeyn xoog leh ay ka dhacday xalay duqeyntaasi oo lagu bartilmaameedsanayay gawaari dagaal oo ay ku lahaayeen Al-Shabaab kuwaas oo sida la sheegay qaarkood u ekaa kuwa ay isticmaalaan ciidamada AMISOM. ugu dambeyntii xubnaha la dilay ee sirdoonka soo wariyeen ayaa waxa ay sheegeen in heleen xog sheegaysa in shabaab ay doonayeen inay gaadiidka ku soo weeraraan magaalada Muqdisho. waagaga daawadayaal dhegeystayaal waxaan dhaxda ku jirnaa barnaamijkeeni halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV. sidaad warka ku maqleyseen dalka Lubnaan ayaa yeeshay xukuumad cusub si loo dhameeyo bilooyinkii ee dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo rabshado wato. dalka Lubnaan ayaana lahayn wax ra'iisul wasaare ah tan iyo bishii Oktoobar markaas uu iscasilay ra'iisul wasaarihii hore ee Saciid Al-Xariiri. madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa ku dhawaaqay in ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi uu magacaabay Xasan Diab oo ah aqoon-yahan dhanka dhaqaalaha ah. madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihiisa cusub uu aaminsan yahay in ay wax weyn uga qaban doono dhaqaale xumada liidata ee dalkaasi ka jirta. in ka badan 460 ruux ayaa ku dhaawacmay rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Beirut. dhinaca kale General Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ku-meel gaarka ah ee dalka soo maray ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha ammaanka ee magaalada Muqdisho. Indha Cadde oo wareysi gaar ah siiyay idaacadaha magaalada Muqdisho idaacad ka mid ah
oo ah kuwa loogu dhageysiyada badan yahay, ayaa sheegay. Waxa uuna tilmaamay in ay lama filaan ku noqotay in la helo fanaan Al-shabaab ah oo la shaqeeya gobolka Banaadir. Generaalka ayaa hoosta ka xariiqay in xubnaha Al-shabaab ay ku dhex jiraan meel walba oo dowladda ka mid ah, islamarkaasna ay u shaqeeyaan habab kala duwan. Waa korortay ku-milanka Al-shabaab ee hay'adaha dowladda. Nimankan diin ayay ku bilowdeen oo ay ka been sheegeen, maanta waxa ay isu beddeleen niman maafiyo ah sida maafiyada Talyaaniga oo kale. Maafiyada marka ay awood beeshay waxa ay isu beddeshay koox dadka dhaca, dadka baada, si walbana ka soo mara, haddii ay dowlad tahay iyo rayid, ayuu yiri wareysigiisa ku sheegay. Geesta kale, haddii aan eegno dad lagu qabqabtay howlgallo laga sameeyay Gaalkacyo. Howlgalladan ayaa ah kuwo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Gaalkacyo, qaybta uu ka arrimiyo maamulka gobolka Puntland. Sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka, waxa ayna iska kaashanayaan ciidamada booliiska iyo kuwa dowladda hoose degmada Gaalkacyo ee Puntland. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug Jaamac Maxamed Axmed ayaa tilmaamay inay howlgal ballaaran ka wadaan magaalada Gaalkacyo si amniga magaalada loo xaqiijiyo, iyadoo ay jiraan dad loo qabqabtay intii howlgalladani socdeen. Howlgalladan ayaa ah kuwo looga hortagayo dhibaatooyinka amni darro ee xilliyada qaar ay la kulmaan shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland ay maamusho. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xafiiskiisa kulan gaar ah kula qaatay safiirka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Mr Nicholas Berlanga Martinez. Kulankani ayaa ujeedkiisu ahaa dardargelinta mashaariicda horumarineed ee ka socota caasimadda, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi. Kulanka kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Filish iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa si wadajir ah u daafuray mashruuc cusub oo uu maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in lagu xoojiyo horumarinta ganacsiga cusub ee caasimadda.